السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. وانا سلامي waxaan salaamay salaanta ku xusay halkan maanta waxaan doonayaa insha Allah inaan idin kula wadaago shaqooyin dhowr ah oo la soo naadiyay kuwaasoo ka soo kala baxay hay'adaha saan faahfaahin doono ugu horreyn waxaan ka codsanayaa haddii aanad channelkan badbaado action hore ugu xidhnayn si aad ula socoto macluumaadada aan soo gelino si joogto ah adigoo aan naga dalbanba inaad soo gasho ama aanan ka dalbanba subscribe si like na saar sidoo kalena asxaabtaada kale oo soo share insha Allah maadaama anaguna aan si wanaagsan wax idin la wadaagayno idinku xarjina insha Allah bulshadana soo gudbisaan wixii wanaagsan khayr ku jiro hay'ad loo yaqaano options consultancy services ayaa waxay soo naadisay oo ay rabtaa grantis officer. Grantis aad taqaanaan grantisku waa fursado lagu baahiyo lacago ama fursad la xiriidha markaa in beneficiariesku ama organizationsku ay soo dalban karaan in kind or in cash oo lacago markaa inta badan wax lagu qabto oo markaa waafaqsan mandate-ka hay'adda laftigeeda. marka qof hawlaha qaabilsan grantiska iyo wixii macluumaad ee la xiriira lacagaha iyo bixintooda iyo sida loo galayo ayaa waxay u baahan tahay hay'addaasi options consultancy services ay soo xaysiisay maanta bishu tahay January 25 2023 options seeks a grant officer in Somaliland to provide with financial management and monitoring of grants as part of the program's granting components. marka waxay qof beeraysan marka xaq grant officer ka ah si marka qofkaasi uu maamulo dhaqaalaha iyo dabagalka iyo ka daba warhaynta waxa loo yaqaano ama monitoring grantiska sida tusaale ahaan kala waafaqsan components ka kooban yahay grantis marka inta badan ensuring compliances with all internal donor policies, promoting high quality, timely and cost-effective program delivery through consortium approach and following the highest safeguarding standards. And horta intan waa kulli waa siyaabaha ugu baahan yihiin baa ayaa laga hadlay laakiin waxaan doonayaa qofkii inta fahmi kartaa waana booskan waa boos high level ah waa boos aad u muhiim ah qofkii markaa raba inuu shaqadan qabto ama grantiska iyo waxa inta badan aqoon u leh because grantiska waxa garanaya dadkii ka soo shaqeeyay international ama local ama qof ku soo shaqeeyay baa fahmi kara ama NGO la shaqeeyay hay'ad baa fahmi kara markuu grantiska iyo xabaa ama xisaab celinayo ama uu ka codsanayaba marka halkan waxa ku jirta waa laba fursad baa ku jira fursad qofkii shaqada raadinaya fursad baa u jirto uu heli karaa waa shaqo la soo xayisay sidoo kale tan waxay fursad tahay dhamaanba ururada bulshada Soomaaliland ay faa'iido tahay because halkan waxa ku jirta fursad ah in dadku mashaariic dalban karaan marka taana iyada lafteedu waa keep in mind dadkii inta enjoyada bartaga daawanaya hay'adana ka warhayaan because qofka ma kala qaato shaqa meesha ka bilaabay safar badan hadii la ka dhigo wax lagu codsanayo qofkan specification kiisa waxa kale looga baahan yahay possesses at minimum undergraduate degree in relevant subject area, public health, business, finance, or social science. إنها قف قدو جامعة وصل بحي أو minimum أنت أو ويري هي قف أنت وحاول رجع بحي وين أنت شكاية الشهادة وجامعة وصل بحي. Significant experience in managing programs and grants with proven track record in dispensing grants directly to grassroots organizations in remote and diverse contexts. Across multi-country program maximum 4 years. qofkan waxa laga baahan yahay way aragnimo xagga programska iyo grantiska iyo inuu leeyahay record cad oo hawshan qofkaasi si cad uga soo shaqeeyay gaar ahaan contextka marka wixii arrimaha la xiriira ama wadciga marka arrimaha gaar ahaan 4 years ku daalima shaqadan kulli cid fahmi kartaa way fahmi kartaa sida uu abalay garasa shaqadan email lagu diri maayo shaqadani waxay kaaga baahan tahay as well inaad asan online waa balay garayso deadline keedu waa 5 February 2023 booqo ama linkiska xagga hoosaan soo dhigay insha Allah kali gare YouTube channel ka man xagga hoos soo dhigay insha Allah
taas waa qodob. shaqada kale aan doonayna bartan ka soo idinka ogeysiyo ee la soo galiyay maanta waxa kamid ah waxa la hay'ad loo yaqaano consilient waxay u baahan tahay research officer Hargeysa looga baahan shaqadan closing date-keedu waa 15 February bay dhacaysaa shaqadan qofkii u baahan tahayna waa research officer qof ku wanaagsan arrimaha research-ka baadhista iyo wixii la halmaala qof data soo ururin kara soo map gareyn kara soo shape gareyn kara analyze gareyn kara data collection mapping designing soo mani waxyaabo badan qofka looga baahan yahay waa qof technical inta badan marka shaqooyinkan laga hadlayo qofkan waxa la job description-kiisa looga baahan yahay waxa kamid ah the research officer is responsible for the full life cycle of research support implementation from conceptualization and design to field level implementation and analysis and reporting writing. Waa intii markaa sheegayo oo waxa looga baahan qofkan inuu cycle research ku shaqeeyo oo uu markaa fulin karo fikradna ka haysto conceptual fiican ka haysto design-ka habka naqshadeynta diyaarintiisa iyo field level implementation halka from organization office play to field office to field area laga shaqeynaya intaan isku xidhan karo wixii macluumaad laga qabanayo daatada wala soo uriyo analyze gareyn kari report fiican oo concrete inuu bixin karo that's the important one waa inuu qofkan ahaa team player waa inuu ahaa qof passionate ah waa inuu ahaa qof gudbin kara information-ka research-ka iyo products-kiisa marka si marka inta research-ki marka process-kiisa loo fahmo taana ku daalmaa dadkii ehelkeedii waa jooga ma filay waa la garan karaa ilaa wuxuu leeyahay shaqadan waxay leedahay 6 waajibaad bay leedahay fadlan booqo qaran jobs ama linkiska xagga hoosa soo geli insha Allah ee qaran jobs eeg position-ka waxa laga baahan yahay requirements-kiisa waa bachelor degree in relevant field with period research experience MA preferred okay waa MA qof waa inuu MA xagga shahaado ka sitaa degree-ga ayaa la si prefer garanaya waliba interest research methodology and data analysis waan fahmi karaya experience waan ku aqoon leeyahay waa garan ardayda jacdo waa garan karaan qualitative iyo quantitative data sa loo consider garan kartaan waa inuu sidoo kale aqoon leeyahay basic knowledge leeyahay SPSS ko garanaysan habkii data loo analyze garin jiray marka wax la qori waa garan kartaan okay that's all kulli iyo waxyaabo badan ku jira meesha shaqadan sidoo kale garayso waxa laga baahan yahay iyadana hab link lagu lagu xareynayaa insha Allah marka try best insha Allah inaad iyadana aad xareyso shaqada kale ee la soo naadiyay waxa kamid fawba iyo wax karaanaysa Muqdisho waxay ka rabtaa program officer fawba hay'adda cuntada iyo beeraha ee qaramada midoobay qofkii programka ku wanaagsan waliba qofku intaan shaqada xareynin waa inuu akhristaa faw mandates dadka qaar baa wuxuu iska xareeyaan soo mugdi intaan shaqada xareynin keep to read the mission and the value of the organization you are applying for taas waxa ka caawinaysaa inaad koona interview gaadho waxa lagu weydiinaya how did you come to know about us sad ana lagu baratay sad waxyaabaha sad lagu weydiin karaa marka badanaa the fawda UN badanaa waxa ku shaqeeya waxa loo yaqaan SDGs ka ku shaqeeya sustainable development goal ku shaqeeyaan parameters bay leeyihiin halbeegay leeyihiin daatada qaab u urursan waa hay'adda ugu baran xogta laga helo food security-ga wixii la halmaala shaqada saad u xareyso waxaan ka codsanayaa degree agriculture ka wada haystaa bal guudi rural development-ka NF waa shaqadoodii fiilkood ma raaceen marka taana insha Allah la xareeyo as soon as possible shaqadana waxa lagu abaal hab online haddaad u baahantay wixii caawimaana waxa leedahay career@faw.org kala xiriir insha Allah waa ku qoran linkiska aan soo dhigayaa shaqada kale la soo geliyo waxa weeyaan maanta qualified nurse 3 position ba looga baahay Puntland Allahumma salli ala Muhammad waxaana soo xayisay bisha casba SRCS soo xayisay 3 position oo nurse ah qualified waliba nurse ah 3 position insha Allah reer Puntland يعيدي كاغ دووي هلايان وليبا خاصه waxa loo baahan yahay dan gorayo kala bayd suni chief and nugal region meelahaas inta nugaasha ayaa laga soo xayisiyay ayaa laga shaqeyn doonaa aqoonta nurse-ka waa garan kartaan pre qualified nurse wixii qualified waa garan kartaan shaqadan waxa laga baahan yahay waa garan kartaa
dadkiina way fahmayaan laba sano waa arnimo waa ku jirta horta meesha shaqadan wax lagu xareynaya waa by email by online maaha email baa lagu diray emailkana ku jira halka linkiska hoose iyadana yaa la moogaan waa 3 position saaran waa 3 shaqo waxa kale oo idee xaysiisay bisha cas waxa kale soo xaysiisay oo dangaroyo kala beedka iyo sunu chief iyo inta under Nugal state ka waxa kale soo xaysiisay midwives 3 position midwife ka oo iyaguna shaqada aad raacaya waa inteedii shaqadeedii weeyaan oo fiilka caafimaadka dadkii soo bartay Puntland iyo area ku nool khaasatan Nugal area ha xarayaan waa shaqadan sidii tii hore loo xareynayay CV-ga iyo cover letterka iyo 1 PDF laga dhigay ayaa ku diraysaa marka email ku qoran linkiska xaq oo saanadi dhigay bishaas waxa kale oo doonaysaa bisha cas oo iyaduna sidii si leega oo laakiin laga rabo qarxis iyo maxaa la chalam iyo Nugal regional teeda meelaha waxa looga baahan yahay pharmacy assistant baa looga baahan 3 position baa looga baahan oo iyagu Nugal background-ka wada akhrisan kartaa waa isku wada mid bisha cas waxeedu laakiin responsibility-ga waa loo kala duwan yahay main duties-ka waxa laga baahan yahay akhri linkiskana xaq oo san ku dhigay shaqada laga xareynayo please keep to read oo badana shaqadan bisha cas u baahan tahay CV-gana si match gare CV baa ii qornaa dan waan iska dirayaa dan email-ka ma ku diray maca salaama hadda waa leeso jawaab waayay talo maxay u dhacay meel musuqmaasuqay that's not dadka yala cibayn shaqooyinku imka waa fair badan yihiin dadkii aqoonta labaad imka loo baahan yahay wax ka shaqeyn lahaa qofkii de shaqada gacanta ku hayaan hadduu qolqoluciyo isbay ilaahay waa qolucinaya ilaahay naga hadhi maayo anaguna si dar ilaahay baan ku sheegnay dar ilaahay baan ku soo gaarsiinay warkan idinkuna dar ilaahay baa xareysateen insha Allah qofna ina xumeyn maayo qofkii ilaahay calafkuna waa halkiisa hala xareysto marka iyadana email baa iyadana shaqadan email baa lagu xareynaya waa ba email koobi sidoo ka jeer maxaa la yiraahdaa January dum dhacaya dhow yahay shaqadu halay gaarsiin bisha casweeyay laakiin 31 halka waxa la soo xayisiyo kale GIZ baa soo xayisay procurement and contract intern waa GIZ waa hay'ad jarmala oo GIZ baa la yiraahdaa meel badan ka shaqeysaa background-keedii wixii uu ku qoran yahay waa akhrisan kartaa Allahumma salli ala Muhammad qofkan procurement aan contract intern-ka ah waxa looga baahan yahay aqoon ahaan inuu haado qualifications iyo competencies iyo experience sidan completing with 1 year diploma of supply chain bachelor degree in business administration waa inuu haada ama field la xidhan background experience in knowledge of procurement and procurement principles waa inuu qofkaasi alaab soo iibsigii supply chain-ki waxaas waa inuu aqoon leeyahay because waxa uu parameter lagu xareeyay try best waxa kale qofka loo baahay high proficiency in the use of ICT ga waa qofka fahmi kara computer application ki communication skill ku fiican strong organizational competence waa inuu hada able to work multi-cultural environment waa ku shaqeyn kara good coordinator and competencies and ability to multitask waa inuu hada excellent command of English and Somali additional competencies ki soft skill loo baahnaa weeyaa taana fahmi kartaa ma filaya shaqadana by email lagu xareynaya not by online by email lagu xareynaya qaar online lagu buuxiyaa CV-ga magacaaga taa fahmi kartaa haddii laakiin email lagu siiyo CV-ga iyo wixii laga baahan yahay oo ku qoran bartan akhri ku dir baka by email insha Allah subscribe tana hay laabin dad badan sidoo gaaro noona share garan muuqaalkan السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.